waa qeybtii labaad oo ku saabsaneed ictikaafka. maantana waxaan ka hadlaynaa ictikaaf shuruudiisa maxaa waa qofka inuu ictikaafo maxaa laga rabaa, arkaantiisa uu ku taagan yahayna maxaa waaye, aadaabta qofka laga baahan yahay inuu ictikaafo maxaa waaye, ictikaafkani maxaa buriyo qofka hadduu wax sameeyo laga yaabo ictikaafkiisa inuu ka kacayo. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. horjeegtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa xalaqadii 8aad oo barnaamijkii ahaa bisha ramadaan iyo axkaamteeda. xalaqadeena maantana waxaan ka sheekeynaynaa shuruud alictikaaf maxaa waaye, arkaantiisa uu ku taagan yahay maxaa waaye, aadaabta laga rabo qofka muctakifka maxaa waaye, ictikaafkani maxaa buriyo. afartaa su-aalaan ka jawaabeynaa insha allah tacaala. qeybta koobaad haddaan u nimaadno ictikaaf shuruudiisa maxaa waaye, qofka inuu ictikaafo waxaa laga rabaa shuruudahan soo socda. shardiga koobaad oo qofka muctakifka laga baahan yahay waa inuu ahaado muslim. qof gaal ah maanta dhan hadduu ictikaafayo lagama rabo mana laga aqbalayo. so qofka inuu ictikaafo number 1 waa inuu ahaado qof muslim ah. gaal iyo qof diinta ka baxayba labadaba ictikaafkooda lagama aqbalayo. tan labaad, qofka waa inuu tamyiiz leeyahay. tamyiiz waxaa qof waalan inuusan ahayn ama qof cabsan inuusan ahayn, qof wax kala fahmayo, qof caaqil waa si kala hadan wayno, qof caaqil ah oo qaangaar ah wax fahmayo. hadduu qof wax fahmaynin waalan yahay ama cunug yar yahay shuruud al-ictikaaf wuu ka dhacaa. shardiga saddexaad, qofka muctakifka waa qof ah daahir min alxadath alakbar. laba xadathaa jiro, xadath asqar iyo xadath akbar. kitaab tahaaray ku jirta. xadath alasqar waxaa la dhahaa waxyaalaha weysada jibiyo kalo. xadath alakbarna waxaa waxyaalaha qabeeska waajibinayo. idan qof janaabe ah ictikaaf ma soo gali karo. gabar dhiig caada ama nifaas u joogan ictikaaf ma soo gali karto. bal hadduu u yimaado janaabo u timaado ayagoo masaaj ku jiro ictikaafkooda waa buraaba iskalaaf inay kusoo galaan. shardiga afaraad, meesha lagu ictikaafa waa inay masaajid ahaato. qof gurigiis kuma ictikaafi karo ama suuq kuma ictikaafi karo. shalay kasoo sheekeyni ictikaafka shardigiisa waa inuu masaajid ahaado. لأن الله سبحانه وتعالى وحده ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن شرطك أفراد واعتكافك اللي هو حواي ماشي لو اعتكافه إني أهاتو مسجد. أفرتاس وحواي اعتكافك شروط دي دواي. هذا وحان ربنا مرك إنان أغانو اعتكافك أركان تيسا محاواي، تيركو كتاغيه محاواي، وحوال بتيري ليهين. gurigaa joogtid ruufkiisa ama saqafkiisa waxaa haayo tiirar haayo. ictikaafkaaga tiirarka haayo maxaa waaye, haddaan ictikaafka qalinkan waaye labadan tiira hayso mid kamid hadii la waayo bum wuu dhacaa. marka soo maahan ictikaafka marka arkaantiisa laba waaye. si fiican u dhegeyso, labadan mid kamid ah hadii lagaa waayo ictikaafkaaga ma jiro. rukniga ugu horeeya waxaa waaye النية. إنما الأعمال بالنيات. أما إنما الأعمال بالنية. هذا مساجد إسك سوق الشيء إسك فريستي أذيقو اعتكاف نيسانين أجر كيس مهيليسا مايا، لأن عملك وحو أباهيه نية أباهيه. عملك إن أجر لغوسي النية إناسي سدواي واجب إيه السنة وحكا لصاراي نية واي. مركا إنما الأعمال بالنيات. soomaaliya waxay tiraa mataqaana maanta waxaan soonaa soon bilaa ajir. sax waaye, qofka hadduu maanta dhan cunta uusan cunin subaxii ilaa habeenkii uu cunta cunin laakiin uusan niyeysanin ajir ma hela maya. ictikaafkana saas waaye. haddaa rabtid ictikaafkaaga inaa ajir ku heshid waa inaa niyeysatid inaa muctakif tihid. rukniga labaadna waxaa waaye almukuuthu fi lmasjid. masaajidkii inaad joogtid waa soo niyeysatay, maxaa lagaa rabaa marka hadda camalkiyaa lagaa rabaa inaa ictikaaf. intee ku ictikaafaysaa? masaajid waaye. meela masaajid ahaan laguma ictikaafi karno, shuruudan kusoo sheegnay. idan niyadii markaa soo samaysatay waxaa lagaga baahan yahay camalkii inaala timaadid oo samaysid. haddaad tiraado kale ani waa niyeystay inaan tukado oo aadan tukanin salaadaada waxba kama jiro sidoo kale waaye. waxaa niyeysanaa inaan soomo oo aadan soomin, soon maadan soomin
sidoo kale muctakifka waa niyeystay inaad ictikaaftay ayib camalkii la imaw masaajidkii imaw joog intaasaa lagaa rabaa labadan ruknin waxaa waaye labada rukni haay ictikaafkaaga mid kamid hadii laga waayo ictikaafkaaga ma jira. rukniga labaadna waxaa waaye almukuuthu fi lmasjid, masaajidkii inaad joogtid waa soo niyeysatay, maxaa lagaa rabaa marka hadda camalkiyaa lagaa rabaa inaa ictikaaf. intee ku ictikaafaysaa? masaajid waaye, meela masaajid ahaan laguma ictikaafi karno, shuruudan kusoo sheegnay. idan niyadii markaa soo samaysatay waxaa lagaga baahan yahay camalkii inaad la timaadid oo samaysid. haddaad tiraado kale ani waa niyeystay inaan tukado oo aadan tukanin salaadaada waxba kama jiro, sidoo kale waaye waxaa niyeysanaya inaan soomo oo aadan soomin soomaadan soomin. sidoo kale muctakifka waa niyeystay inaad ictikaaftay ayib camalkii la imaw masaajidkii imaw joog intaasaa lagaa rabaa. labadan ruknin waxaa waaye labada rukni haay ictikaafkaaga mid kamid hadii laga waayo ictikaafkaaga ma jira. marka ayib su-aala isweydiinayna, qofka meeqaa ugu yar u ictikaafi karaa, meeqaa ugu badan u ictikaafi karaa? jawaabtaasna waxaa waaye waqti ugu yaroo la ictikaafana ma jirto, waqti ugu badan oo la ictikaafana ma jirto. intaa rabtida ictikaafi kartaa, laakiin sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd 10 u dambeeya inuu ictikaafo. 10kaas maalmood waa ictikaafi kartaa, haddaa rabtidna waa ka badi kartaa sida nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam aaga badiyay sanadka ugu dambeeyay 20 maalmood oo ictikaafay. maalmaha caadiga haddaa rabtid waa ictikaafi kartaa, waqti muxadad mala, hal maalin waa ictikaafi kartaa, ka badan waa ictikaafi kartaa. dadka shaqada aadoo kale mathalan haddiidan 10 maalmood ictikaafi karin, intaa ka awoodid ka ictikaaf. qaacidaa jirta la yidhaaho maa laa yudraku kullu laa yutraku jullu, haddaadan wada samayn karin ha ka wada tegin, intaa ka awoodid khayrka ka sameey. ayib hadda waxaan soo ogaanay shuruudda qofka muctakifka laga rabo, waxaan kaloo soo ogaanay arkaanta ictikaafka. waxaan rabnaa inaan ogaano aadaabtay leedahay, maxaa qofka muctakifka maxaa laga rabaa inuu sameeyo. masaajidka ma layska seexdaa keliya mise waxyaala kalaa lagu sameeya? aadaabta loo baahan yahay qofka muctakifka inuu sameeyo maxaa waaye? haddaan kuu soo gaabiyo aadaabta qofka muctakifka laga rabo waxaa waaye inuu ku mashquulo cibaadada. masaajidka maxaa u timaaday? su-aashaas isweydii. masaajidka maxaa u timid? masaajidka waxaan u imid inaan cibaadaysto, idan cibaadada ku mashquul, salaadii ku mashquul, qur-aankii ku mashquul, adkaartii ku mashquul, ducadii ku mashquul, khayrka inaad dadka u sheegtid u muxaadaraysid ku mashquul, inaad adiga naftirkaa muxaadara dhageysatid ku mashquul, khayrka dhan ku mashquul. qofka muctakifta aadaabta laga baahan yahay intaas waay, iyo inuu iska ilaaliyo wax kastoo xun oo ictikaafkiisa dhibaayo. waxaan soo gaarnay markada qeybtii u dambeysay oo ku saabsana ictikaafka. ictikaafka maxaa buriyo? arrimahaan soo socdaa burise, iska ilaali inaad samaysid mid ka mid ah, laanna haddaa mid ka mid ah samaysid ictikaafkaaga waxaa waaye bax uu kaa bura. number 1 oo ictikaafkaaga burinaya waxaa waaye aljimaac. qofka inuu xaaskiisa la jimaaco, xaaskiisa u galmoodo, xaaskiisa u tago, hadduu sameeyo ictikaafkiisa waa bura. ilaahaba noo sheegay walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid. sidaa darteed qofka muctakifka hadduu xaaskiisa jimaac la sameeyo ictikaafkiisa waa buray. ibn mundir iyo ibn xasmin ijmaac ahlilcilmi soo gudbiyeen. tan labaadna tan koobaaday ka ag dhowdahay waa mubaashara, qofka xaaskiisa inuu la fara ciyaaro biniyati shahwa, asoo shahwo rabo hadduu xaaskiisa la fara ciyaaro iyadana waa jibinaysa, ictikaafkay jibinaysaa. laakiin xaaska haddii shahwo la-aan tahay waa la hadli kartaay, timaha way kuu shallay kartaay, waa salaami kartaay, intaas dhan waa samayn kartaay. tan saddexaadna waxaa waaye inzaali ilmani, qofki inuu mani iska keeno, ama sicdo daraha isaga keeno, ama fiirisa isaga keeno, inuu qofka mani iska keeno asigoo masaajidka joogo, asigana ictikaafkiisa way buraysaa. tan afaraadna waxaa waaye gabadhihii khaas ku tahay xayd inuu ka yimaado, ama inay dhasho, xayd inuu ka yimaado ama dhiig dhalmeedka inuu ka yimaado, labadaas ayagana ictikaafka wuu burna. gabadha markuu xaysaan u yimaado ictikaafkeeda wuu bura, haddii dhiig dhalmeed ka yimaado asigana ictikaafkeeda wuu bura. tan shanaadna waxaa waaye qofka inuu caqliga ka tago, wuu waashtay walciyaadu billah. qofka hadduu waashtay ictikaafka wuu bura, lana takliif wixii saarnaa dhanaaba ka degi, waa ka dhacaybo, wuu waashtay wuu ka dhaca.
sidoo kale waxaa burinaya walciyaadu billah ilaaha ka magangalno qofka inuu khamro cabo maskaxdiisa si kala noqoto ama darooga cabo isoo masaajid ku jiro ictikaafkiisa asigane wuu buraa. tan lixaadna waxaa waaye alridda walciyaadu billah qofka inuu diinta ka baxo ictikaafkiisa isna meesha ayuu ku buraa. tan todobaadna waxaa waaye qofka inuu masaajidka ka baxo wuxuu go-aansaday masaajid inuu iska baxo wuu baxaybo hadduu masaajidka ka baxo asigane ictikaafkiisa wuu buraa. tan sideedaad asina waxaa qofka wuxuu niyeystay go-aansaday inuu ictikaafka jibiyo asuu meeshiis joogo wuxuu khalaas ictikaaf waa ka baxaaba go-aan rasmi niyadda waaye niyaduu ka gaaray asina sidoo kale ictikaafkiisa wuu buraa. soonkaba sidoo kale waxyaala buriga kamid tahay haddaa niye caazima go-aan la timaada wuu kaa bura oo tira soonka waa furay khalaas wuu kaa furmaa xataa haddaa wax aadan cunin. sidoo kale ictikaafka haddaa niyeysatay tira ictikaafka waajibina macnaheeda waajibisi waaye waana kaaga dhamaatay. intaas aan soo sheegnay oo ictikaafka jibinayo culummada waxay u sameeyeen 3 shardiyo muhiim ah. intaan aan soo sheegnay ictikaafka wuu jabaa haddii 3dan arrin lagaa helo ama 3dan arrin oo kugu caddaato. tan koobaad waxaa waa an yakuuna caalima qofkan wuxuu sameynayo inuu cilmi u leeyahay kasoo u sameeyay laakiin hadduu jaahil yahay uusan ogeyn masaajidka laga baxaayo inay ictikaafka ka jibinayso taas looma caadi waayo kama jabaysa insha allah tacaala. tan labaad ee culammada u shardiyaana waxaa waaye an yakuuna daakina qofka inuu xasuusnaadabo hadduu qofka hilmaamo maalan asoo muctakif wuu hilmaamay subaxii soo kacay baabuurkiisa soo qaatay wuu iska baxay dhaxda markuu joogo soo xasuustay markaasuu soono ictikaafkiisa wuu jiraa marka jabaayo si qof soomano biyo caboo kale waa. tan saddexaadna waxaa waaye an yakuuna mukhtaaran qofka inuu kas u sameeyo waxaan laakiin haddii lagu qasbo samee haddii kale waa ku dilaynaa la yidhaaho uu sameeyo ictikaafkiisa asigana ma jabaayo. so waxyaalaha ictikaafka jibinayo intaan soo sheegnay waaye laakiin waxyaalahaas naftirkooda waxaa shardi u ah 3dan arrin aan soo sheegnay qofka inuu cilmi u leeyahay inuu xasuusnaado inuu ikhtiyaar u sameeyo oo aan lagu qasbin. laakiin hadduu jaahil ka yahay uusan ogeyn ama uu hilmaamsan yahay u xasuusneen ama lagu qasbay insha allah ictikaafkiisa ma jabaayo wuu u jiraa. ictikaafka marka intaasuu ku eg yahay cajalkii hore iyo cajalkan haddaa isku darsatid ictikaafka axkaamtiisoo dhammaystiran waa haysataa fadligiisa kasoo bilaaw ilaa waxa burinayo kulli waa haysataa. kii horena dhageyso kanna dhageyso markaa isku darsatid ictikaafka axkaamtiisoo dhammaystiran meeshaanay kugu jirtaa. marka haddana waxaa la soo gaaray waqtigii aan su-aasha ku weydiinayay lana barnaamijkan waxaa waaye markasta markaan dhameeyo idinkana su-aalaan idin weydiina anna su-aalaan isweydiina oo xalaqada kale aan ka jawaabayo. idinka su-aasha idin weydiinaya waxay tahay gabar muctakifa ah iyadoo ictikaafkeeda ku jirto hadday maqasho ninkaaga waa dhintay ictikaafkeeda ma buraa mise ma buraayo meesheeda iska joogaysaa mise wuu buraaha way bixaysaa kasoo jawaab khayr allah ku siiyo. haddana waxaa la soo gaaray su-aasha aniga isweydiinayay oo aan beri ka jawaabayo insha allah tacaala ama xalaqada soo socota aan ka jawaabayo. maxaa loo ictikaafa waxaa loo ictikaafaya waxaa waaye inaan helno laylat alqadr. haddaba laylat alqadr maxaa waaye intay ku jirtaa fadligeeda maxaa waaye maxaa la sameeyaa habeenkaas ducada ugu fiican oo lagu duceysto maxaa waaye qofkii oo laylat alqadr ilaahay waafajiyo muxuu helaa iyo arrimo badan oo ku saabsan laylat alqadr insha allah tacaala. jawaabteedana haddaa ratina ogaatid xalaqada beri ama xalaqada soo socota yay ku dhaafin. ugu dambeyntii allah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo bisha ramadaan soonkeeda. allahuma acinnaa calaa siyaami ramadaan wa qiraa'ati alqur'aan wa qiyaami ramadaan. ilaahayo bisha ramadaan soonkeeda noo fududay nagana aqbal qiyaami leylka ilaahayo noo fududay qur-aan aqriskana noo fududay ilaahayow dadka naarta ka xoreynaysa nagu dar laylat alqadrna waafaji aamiin dhaha. jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum. waa inuu biri iyo laylat alqadr maxay tahay iyo fadligeeda ilaa biri laga gaarayo dhageyso ku camal fal walaalaha kalena usii gudbi. jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu.